أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاليال أداني سلام يا مر والبا kusoo dhawaada sheekada maanta ama sheekadan aan isoo gudbinayo oo ka tirsan sheekooyinkan ugu talagalay bisha Ramadaan. waxaan jeclahay inaan isoo gudbiyo sheekada ama qisadii Maryam binti Cimraan oo ahayd hooyadii Nabiyullah Ciisa calayhi salaam. ayaan rabaa sheekadeeda kooban inaan ila qaybsado insha Allah. dhegeysi wanaagsan. inta ugu badan waxaa kusoo aroora ama quraanka ku jira sheekooyin badan oo dadkii hore ah oo Ilaahay ugu talagalay inay dadka u noqoto cido iyo cibro laga qaato. inta badanna oo Ilaahay markii lagu soo dejiyay quraanka Nabi Maxamed calayhi salaatu salaam sheekooyin badan ay ku jireen, taasoo Ilaahay ugu talagalay xikmad iyo in lagu dejiyo qalbiga nabigeena calayhi salaatu salaam markii diinta lagu soo dejiyay. culeysyada fara badan ay soo food saareen uu yeeshay cadow badan oo la dagaalamaya isaga iyo diinta, ayaa Ilaahay mar walba wuxuu uga sheekeyn jiray sheekooyinkii dadkii hore iyo ambiyadii hore iyo waxay soo mareen si qalbigiisa loo dejiyo, iimaankiisa loo xoojiyo, au u helo dhiirigelin iyo niyad au ku sii wada diinta. ayuu Ilaahay mar walba qisooyinka quraanka ugu sheekeyn jiray. haddaba qisada maanta ah qisada Nabi Ciise hooyadii oo Maryam binti Cimraan. Maryama iyadii oo yar waxay ka dhalatay Maryam binti Cimraan qoys aad u wanaagsan. hooyadeed Xina bint Faaquda ayaa la oran jiray, abeedna Cimraan. waxay ahaayeen laba qof oo aad iyo aad Ilaahay ugu xiran ay ahaayeen oo taqiyiina ay ahaayeen. waxay Maryam hooyadeed ku ducaysatay inuu Ilaahay ilmo ku arsaaqo, iyadoo xilligaa ay isku arkaysay ayna dhali karin. waxayna Ilaahay ballan ugu qaaday haddii uu Ilaahay ilmo ku arsaaqo in uu noqon doono mid isaga dartii ay Ilaahay dartii nadir ay ku gashay inuu noqon doono mid Ilaahay u adeega. ay ku ducaysatay. Ilaahay wuu aqbalay. waxaana u calool gashay Maryama binti Cimraan ayaa u calool gashay. kadib markii ay umushay ayaa waxay noqotay gabadh, iyadoo markaa jeclaysanaysay inay wiil ahaan lahayd, waayo inta badanaa masaajida iyo dadka diinta Ilaahay u adeega waxay ahaayeen rag. laakiinse Ilaahay halkii wuxuu u geliyay Maryam ayuu u geliyay, wuxuuna Ilaahay ka dhigay gabadh yar oo saalixada oo wanaagsan oo caabidada Ilaahay ku xiran ayuu Ilaahay ka dhigay, oo iyadu u adeegtay iyaduna diinta ayuu Ilaahay ka dhigay. Maryam waxay noqotay Ilaahay gabadh oo Ilaahay dhan walba ka ilaaliyay ayay noqotay. iyadoo caloosha ku jirtay ayuu aabaheed geeriyooday. Maryama waxay noqotay qof mar walba sii weynaato waxay noqotay gabadh yar oo miskiidka Ilaahay inta ugu badan waqtigeeda ku qaadata iyo cibaadada Ilaahay ku qaadata. aabaheed markuu dhintayna waxaa koriyay ay ku kortay guriga abtigeed Nabi Zakariya calayhi salaam ayaa soo koriyay oo gurigiisa ay joogi jirtay. mar walba uu Nabi Zakariya u yimaado meesha ay joogto oo ka yara fogeyd meelaha dadku ay joogaan ama qoomkeedu dhulka ay degeen, meel yar ka baxsan bay deganaan jirtay oo joogi jirtay oo waqtigeeda ku qaadan jirtay cibaadada Ilaahay. markasta oo Nabi Zakariya u yimaadana wuxuu arki jiray iyadii oo cunto fara badan iyo risiq fara badan ay horteeda yaalaan, ayna garanayn iyaduna ayna garanayn isaguna una garanay meesha ay ka timi, balse ay ahaydun wax Ilaahay iyada uu ku arsaaqayo mar walba, maadaama ay ahayd gabadh aad iyo aad u caabidada oo aad iyo aad u wanaagsan oo u qiimo badan ay ahayd, oo zaahidada oo adduunka ka zaahiday dhaldhalaalka adduunka waqtigeega oo dhan gelisay cibaadada Ilaahay ay ahayd Maryam binti Cimraan. Allah ka raali noqday. markii ay Maryam ay sidaan sheegay ay
degtay meel yaroo ka yara fog oo muncasilka ah dadkeyga aanan u muuqan. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu soo buuqday malag Jibriil inuu soo buuqdo markaa qof iska soo dhigaya. Isagoo qof iska soo dhigaya ayay u timid u yimid markay aragtay way naxday, runtii way ka naxday. Waxay mooday qof dhibaato iyadoo la damacsan ay mooday. Way naxday. Waxay tiri sidii Ilaahay quraanka uu ku sheegay qaalat innii acuudu birraxmaani minka in kunta taqiya qaala innamaa ana rasuulu rabbiki liahiba laki ghulaaman zakiya. yacni haddii aad xumaani la dabacsantahay ilaahay baan kaa magan galay ayay leedahay. Wuxuu ku jawaabayaa malag Jibriil waxaan ahay anu malag rasuul ilaahay kuu soo diray si ilaahay kuu siiyo kugu arsaaqa ilmo. Markaas ayay la tacajubtay hadalkiisa waxayna ugu jawaabtay waxay tiri sidee u noqon kartaa aniga oo qof bini aadan i taaban. waxay tiri oo sidii Ilaahay quraanka inoogu sheegay qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basharun walam aku baghiya qaala kadhalika qaala rabbuki huwa calaya hayin walanajcalahu aayatan linnaasi waraxmatan mina wakaana amran maqdiya. Sidee bay ku dhici kartaa malag Jibriil sidee ku dhici kartaa inaan ilmo aan qaado aniga oo qof i taaban, aniga oon ahayn haween xun oo yacni qof wanaagsana sidee ku dhici kartaa. Markaasuu ka leeyahay ilaahay ayaa saa soo amray waana wax ilaahay ku fudud. Waxayna noqonaysaa arrinkan arrin bini aadanka ama dadka u noqdo wax cibra ama aayada. Wuxuuna noqon doonaa naxariis waana amar ilaahay soo bixiyay buu ka leeyahay. Iyadoo sidaa tahay ay Nabi Ciise ugu calool galay Maryam binti Cimraan ayaa waxaa dhacday in xilligii ay soo gaadhay ay markaa ay umuli lahayd Nabi Ciise iyadii oo walwalsan oo aad iyo aad u naxsan oo ahaa yacni uurkan oo ahaa mid mucjiso ku ah iyada may ogeyn markaa inuu Nabi Ciise oo caloosha ugu jiro. Waxaa dhacaysa in ay tegayso markii xanuunkii foosha u qabtay ay tegayso meel magaalada ka yara baxsan ay tegaysaa foosha ayaa ku qabanaysa. Marka kutubta qaar ama siirooyinka qaar waxay odhanayaan uurkeedu wuxuu ahaa saacad keliya. Qaar baa odhanaya 9 bilood sida dadka caadiga ayuu ahaa, qaar baa 6 bilood odhanaya balse quraanka kuma sugna waqtiga uurkaasi qaatay. Markii ay degtay meel ka fog magaalada oo ay ku qabatay dhibtii iyo xanuunkii foosha ayaa waxaa dhalanaya Nabi Ciise iyadoo dhib walba la soo martay iyadoo cidi la joogin ilaahay mooye cid kale ayna la joogin. Ayaa markii ay umushay Nabi Ciise iyadoo naxsan oo walwalsan oo xataa tiri waxaan yacni waxay leedahay xataa yarid haddaan dhiman lahaa intaynan aan soo gaarin marxaladan oo la iloobi lahaa bay xataa leedahay. Markaas uu umushay ayuu Nabi Ciise calayhi salaam uu ka hoos hadlayaa au leeyahay hooyo ha walwalin geedka aad hoos fadhido lul waxa kaaga soo daadan doona timirtaa cun. Waxaad kala samaysaa halka aad ku taagan tahay lugahaaga ku xaji biyo ayaa kaaga soo daadan doona, biyo ayaa kaaga soo bixi doona. Biyihii iyo timirtii ayay isticmaalaysaa oo ay cunaysaa. Markaa kadib waxay helaysaa tamar ay iskaga xajiso dhibaatadii foosha. Halkaa marka ay marayso ayaa Ilaahay wuxuu ka leeyahay ilmihii yaraa markii ay umushay wixii ay soo martay wixii oo dhan ay kasoo gudubtay fooshii xanuunkii ay ilmihii yaraa qaaday. Ilaahayna wuxuu ka leeyahay ciddii kula hadasha wax ku weydiisa hala hadlin muddo 3 cisho ah. Sidii bay ku tagtay qoomkeedii markii la arkay iyadoo ilmo wadata ay dadkii ay yaabeen waa la fajacay waxaa la yidhi waa maxay ilmahan halkeed ka keentay.
waxay leeyihiin hooyadaa qof xun ma ahayn, aabbahaana ma ahayn qof xun. Halkeebaad ka keentay ilmahani, maxaa kalifay inaad ilma dhishid? Lama hadlayso. Waxay ishaaro ku siinaysaa ama ay leedahay la hadla ilmaha yar. Markaasay leeyihiin sideen ula hadalaa ilma imika dhashay? Markaasuu Nabi Ciise la hadlayaa uu leeyahay waxaan ahay nebi Ilaahay soo diray, waxaan ahay. Markay yiraahaan kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya, ayaa wuxuu ku jawaabayaa ay u ishaarta ay ilmaha yar u ishaartay inay la hadlaan, ayaa wuxuu leeyahay Nabi Ciise calayhi salaam qaala innii cabdullah aataani alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaanii bisalaati wazakaa maa dumtu xaya wabiran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wassalaamu calaya yowma wilidtu wayowma amuutu wayowma ubcathu xaya. suuratu maryam ayay ku jirtaa. inta ugu badana qisada maryam iyo Nabi Ciise suurata maryam bay ku jiraan. suurado badanna ilaahay wuu kusoo sheegay sida aali cimraan, at-taxriim iyo suurado kale. marka Nabi Ciise wuxuu leeyahay waxaan ahay addoonkii ilaahay, ilaahayna wuxuu ii soo dhiibay kitaab, wuxuuna iga dhigay nebi, wuxuuna iga dhigay ad qof barakaysan meel walboon jooga, wuxuuna ilaahay igu dardaaray salaada iyo zakada inta aan noolahay, wabiran biwaalidatii iyo inaan hooyaday adeeco, igamana dhigin jabbaara shaqiya qof adag oo xunna ilaahay igama dhigin. assalaamu calaya yowma wulidtu wayowma amuutu wayowma abcathu xaya. yacni nabadi korkayga ha ahaato maalinta aan dhashay iyo maalinta aan dhimanayo iyo maalinta ilaahay isoo bixin doonaba, nabadi korkayga ha ahaato. sidaas ayay markaa ku yaqiinsanayaan reer bani Israa'iil in uu nebi yahay Nabi Ciise, oy wax qaladan aynaysan, waxaan ay xikmad tahay. waa kuwa marka dambe isku qabsanaya xaqiiqada Nabi Ciise iyo ay odhanayaan qaar badani waa inankii ilaahay, qaar odhanaya waa ilaahay, qaarba si ay u qaadeen markii dambe. sidaas ayuu ilaahay risaalada ugu soo dhiibay isagii oo yar. riwaayadaha qaarna waxay leeyihiin in Nabi Ciise intaa markuu yiri au aamusay oo kadib markii au gaadhay xilligii carruurta ku hadlayeen au dib u hadlay ayay leeyihiin. laakiin waa wax mukhtalif ayay ku tahay culimmada inta ugu badan. intaasa jeclaan kusoo koobo sheekadii Maryama binti Cimraan. wax isku daynaa soo koobo. intaan ku kulmayno mowduuc kale waxaan naga tegayaa iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.